waxa ka lumay controlkii waxaanay hoosta u gashay tareen soconaya muuqaal haweenay si mucjiso ah uga badbaaday dhimasho iyo dad goobjoogayaal ah oo ay dhacdadaasi aad uga yaabisay haweenay ayaa ku sigatay geeri kadib markii ay miyir bedelantay oo ay ku dhacday tareen soconaya hoostiisa waa shil argagax leh oo ay duubeen kamaradaha CCTV ee dalka Argentine wargeyska Ingiriiska ka soo baxay Daily Mail ayaa Miss Candela ka soo xigtay talaadadii Abriil 2022 inay sheegtay inay dareentay sidii qof dib u soo dhashay oo kale kadib markii ay ka badbaaday shilkan naxdinta leh argagax ayaa ka muuqday wajiyada markhaatiyaashii dhacdadan goobjooga u ahaa waxa ay filayeen geerida haweenaydan iyaga oo arkayay iyada oo tareenka hoosta u gashay markii uu galay saldhigga madax bannaanida ee deegaanka Gonzales Catalan ee duleedka caasimadda Argentina ee Buenos Aires muuqaalka ayaa muujinayay haweenayda oo turunturoonaysa ka hor inta aysan hore u dhicin oo ay hoosta u gelin tareenka goobjoogayaasha ayaa ku soo yaacay si ay uga soo badbaadiyaan tareenka hoostiisa waxayna ka soo saareen iyadoo nool ka hor inta aysan fadhiisin kadibna waxa ay jiifiyeen barxadda saldhigga ilaa uu yimid ambulansku oo uu ku qaaday kursiga soconaya ama wheelchairka markii la geeyay cisbitaalka Buenos Aires dhakhtarkii waxa uu ogeysiiyey in xaaladdeedu fiican tahay waxaana uu sheegay inay bixi karto Candela ayaa u sheegtay telefishinka Argentine in si lama filaan ah cadaadiska dhiigu hoos ugu dhacay oo ay miyir bedelantay waxaan isku dayay bay tiri inaan u digo qofii hor taagan laakiin waxba ma xasuusto ilaa daqiiqada aan hoos ugu dhacay tareenka waxa ay raacisay ma garanayo sida aan weli u noolahay waxaan weli isku dayay inaan fahmo waxa dhacay dhanka kale goobjooga ku sugnaa goobta dhacdadan ayaa yidhi haweenaydani mar kale ayaa ay dib u dhalatay waa mucjiso waxaan sugaynay tareenka si lama filaan ah haweenayda ayaa ku hoos dhacday tareenka waa wax la yaab leh inaysan waxba gaadhin ayaa uu yidhi goobjoogahaasi